Shaqadan waxay khusaysaa dhammaan ardayda sanadkan ka baxday dugsiyada sare isku diyaarinaya inay galaan jaamacadaha. Haddii doonaysid in isbeddel wanaagsan oo dhaqaale iyo waxa weeye shakhsiyadeedba aad gaadhid, waxyaalaha aan lagama maarmaanka ahayn waxa kow ka ah waxa weeye inaad yacni noolaato nolol soo jeeda ood si fiican u qoondayso una qorshaysato waxaad doonaysid iyo isbeddelkaad rabto inaad samayso. Haddaba si keliyata marka aad jaamacadda uga baxdo inaad ugu baraarugin inaad shaqo u baahan tahay waa inaad iminka sii tijaabin kartaa. Waa inaad yacni awood u yeelan kartaa inaad barato xirfadaha yacni basicska ah ee qaabkii loo qorayay codsiyada shaqada amba waxaan la yidhaha CV-yada iyo qaabkii lagu diyaar garoobiyay interview-ga amba wareysiga shaqada. Tani waxay siin doontaa inaad iminka intense sii xareysataan inaad yacni carbis shaqo aad sii xareysataan. Waa iminka waxaad haysaan waqti baad haysaan waqtigaad baranaysaan wax maaha yacni waqti kale aad haysaan oo dheeraada energy baad haysaan aad wax weeyaan ma garanaysaa aad wax ku qaban lahaydeen waxaad u baahan tihiin khibrad baad u baahan tihiin fara badan inaad heshaan iyo xog badan oo wax barataan oo yacni shaqada laftigeeda ka barataan. Laakiin kaliya haddii aad ku tala gasho marka jaamacadda ka baxday inaad shaqo raadsato caqabad badan baa yacni waxa weeyaan kusoo wajihi doonta. Iminka si haddii aad intense sii gasho oo aad fursadda ka sii faa'iideysato inaad ku sii shaqeyso yacni intense oo aad xoogga saarin inaad lacag hesho waxay ku siin doontaa khibrad adiga lagu baahday hadhow toole khibrad aad halkaad ka shaqeynayso ku dalici karto sidoo kale aad awood ugu yeelan karto in meelo kalena waxa weeyaan fursad haddaad ka aragto aad ku shaqeyn karto waayo khibradda yacni marka lagu leeyahay maaha wax meel lagu barto marka laga imaado qabashadeeda lagu qabanayo shaqada dhexdeeda waa meel yacni khibraddu waa ku kobaca shaqada dhexdeeda iyo qabashada yacni shayga aad qabanaysid waxa aad ka baranayso. Marka waxaan aad idinkula dardaarmayaa inaad iminka sii shaqeysaan ood isku daydaan inaad iminka yacni qaabilaasha aad ku shaqeysaan idinkoon lacag doonaynin. Waxaa kaloo idinkula dardaarmayaa in aad barataan xirfadaha yacni la tacalluqa tiknoolajiyada ee kala duwan. Waayo tani waxay idin sahli doontaa markaad leedahay xirfado kala duwan waxaad haystaa fursado kala duwan oo aad ku shaqeyn karayso shaqooyin kala duwan aad ku qaban karayso. Tusaale kale gelin marka jaamacadda tagto gelinka kale waxaad ku bixisaa koorasyo yar oo gaagaaban inaad yacni aad diyaariso oo kala duwan. Marka waxa laga yaabaa sanadka ugu horeeya inaad diyaarin karayso 3 kooras 4 kooras 5 kooras oo kale inaad diyaarin karayso oo kala duwan oo muddo kooban la dhiganayo wax badanna laga faa'iideynayo. Qodobka ugu dambeeya soo gabagabeynaya wuxuu yahay fiilkaad dooranaysaan yacni ku doorta inuu yahay mid aad idinku aad jeceshihiin oo arkaysa maadooyinkiisana inaad ku wanaagsanayd waqtigii aad ka soo baxaysay dugsiga sare sidoo kale uu yahay waxaad adigu xiiseynayso oo nahay wax adiga lagu khasbayo amba waxa weeyaan caadifad ahaan oo aad u qaadanayso waayo waa shay ku daba socon doona noloshaada inta ka harsan. Marka waxaan idin rajeynayaa insha Allah tacaala mustaqbal wanaagsan iyo inaad nolosha guulo hor la ka gaadhaan idinka Ilaahay.